بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بإذن الله الكريم إن شاء الله maanta waxaan ka hadli doonaa qaybta labaad xasadka iyo narcissistic personality disorder إن شاء الله. qaybta koowaad waxyaalo badan ayaan ka hadalnay, calaamooyin badan ayaan ka hadalnay oo aan ku sheegayno qofkani sidoo maaragtay noloshiisa u eg tahay iyo sidoo dadku la dhaqmayo. waana darsiga hore waxaan ku sheegnay maaragtay qofka marka uu la baarayo waa in laba shay laga baaraa: al-acraad as-suluukiyya wal-acraad al-jasadiyya. marka waxaa kaliya aan kusoo qaadanay wuxuu ahaa maaragtay al-acraad as-suluukiyya darsiga la soo dhaafay. marka waxa waaye maxay noqon karaan al-acraad al-jasadiyya? al-acraad al-jasadiyya yani qofkan xanuunyada uu sheeganayo maxaa waaye, sida lagu garto inuu asaga maaragtay xaasid uu yahay. laanna qofka xaasidka naftiisa markuu dadka kala xasdaayo ilaahay subxaana wa tacaala waa caadil. qofkani xataa maaragtay xanuun ayaa lagu ibtileenayaa. laakiin markin aniga baaritaan aan u galay oon fiiriyey waxaan arkay markuu xoogaa yar ugu weynaado 40 markuu kor u dhaafo 45 50 markuu gaaro waa markuu xanuunyada ay ku bilaabanayaan. inta ka horeyso oo dhan qofkan waxa waaye hadaf ayuu leeyahay. hadafkaas inuu gaaraa rabaa asoo caafimaad qabo. caafimaad waxaan ka wadaa xanuun oo jasadi ma qabo. marka waxa waaye in xanuunkaas lagu mashquuliyo lama rabo. waxaa la rabaa qofkaani hadafka laga leeyahay shaqada loo diray inuu qabsado. marka sidaas darteed waxaad arkaysaa qofka oo xaasidka maaragtay xanuunyada gadaal ayaaga soo bilaabanaya. marka waxaa jiro calaamadooyin kale aniga xali aan darsiga hore aan ku sheegin. waxaan rabaa insha allah inaan ku daro biidni illahi alkariim. markaas kadib aan u gudubno maaragtay calaamooyinka maaragtay oo al-acraad al-jasadiyya insha allah. waxaan kaloo aan rabnaa inaan ku darno inuu qofkani maarag yahay qof oo maaragtay oo anaani ah. anaani waxaa la dhahaa qofka oo kaligiis dantiis loo fiirsanayaa, dadka kale maaragtay ma tixgelinayo. dadka kale ma tixgelinayo, tiisi kaliya ayuu mar walba fiirsanaya. waxaa kaloo lagu arkayaa inuu qof oo yahay aad iyo aad isla weyn. kibir ayaa ku jiro oo غير caadi ah oo normal aan ahayn. كبر حتى هذا السريع maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala ma jecel. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yadkhulu aljannata man kaana fii qalbihi midqaala daratin min kibr. dara sagiira wax yar oo kibir hadduu qalbigaa ku jiro waxa waaye ilaahay subxaana wa tacaala jannada kuma gelinayo. marka kibirka wuxuu raba ha noqdo darajo kasta alla aado waa shay manbuuth, waa wax oo ilaahay subxaana wa tacaala aan jeclayn iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo ku arkaysaa qofkan inuu asraar badan yahay. يعني أسرارته way fiican tahay qofka maaragtay inuu asraar oo lahaado sir wixiisa inuu ahaado waa fiican tahay. laakiin dadka adiga kugu dhow maaragtay oo ahalkaaga iyo dadka aad ugu jeceshahay waxa waaye inay maaragtay waxyaalo qayb noloshaada ka mid ah inay ogaadaan waaye. ma wax waliba inaad maaragtay aad ka dhigta ma aha wax oo sir ah. waxaa kaloo lagu arkayaa qofkan inuu yahay qof oo laba wajiile ah. يعني familigiisa iyo dadka uu jecel yahay weji ayuu ula dhaqmaaya oo xun. dadka banaankana maaragtay wuxuu ula dhaqmayaa si fiican ula dhaqmaaya.
إن شاء الله qaybtaana si fiican u sharxi doonaa بإذن الله الكريم إن شاء الله دروس soo socdo waxaad arkaysaa inuu yahay qof oo maaragtay shisheeye kalkaaliya dadka shisheeyaha ayuu aad u garab qabanaya oo yani maaragtay oo saacidaya laakiin markaad aragtay dhinaca familigiisa xaaskiisa ilmihiisa hooyadiisa aabihiisa iyo maaragtay ma garab qabanayo sida dadka oo maaragtay oo ajaanibta yani dadkan shisheeyaha ah oo u garab qabanayo waxaa kaloo lagu arkaa qofkaani wax naxariis ah ma laha wax naxariis ma laha markuu naxariis oo ku tusinayna waxa waaye waa markii maaragtay oo asaga dan oo kaa leeyahay markuu asaga dan oo kaa leeyahay marka calaamooyinkaan aan soo sheegnay hadda waa calaamaan suluukiya oo dhaqanka oo qofka xaasidka ah aan darsiga hore oo maaragtay aan ku sheegin aan hadda inta ku soo daray marka insha Allah hadda waxaan u gudbaynaa باذن الله الكريم الاعراض الجسديه يعني qofkaan xanuunka oo dareemayo maxaa waaye sida runta waxa waaye qofkaan xaasidka ah waa qof oo maaragtay oo beenlow ah marka waa adag tahay sida aad ku ogaatid ninkan inuu maaragtay xasad ku jiro in kale marka aniga u yaraan adiga 9 bilood ayay qaadatay 9 bilood ayay qaadatay inaan qofkan aan daraaseeyo oo acraadka maaragtay aan ogaado yani waxaan dhex galay asxaab iyo family iyo weelahaasaan galay waxaan ka raadiyey horta acraad as-suluukiyaan raadiyey dhaqanka ayaan raadiyey dhaqanka markaan helay waxaan raadiyey haddana maxuu qofkan uu sheeganayo maxuu xanuun uu sheeganayo maajo marka waxaan arkay maaragtay yani in oo qofkaani badanaa wixii xundurta ka koreeyay inuu xanuunkiis meelahaas u badan yihiin ha noqoto qalbiga ha noqoto feeraha ha noqoto dhuunta sanka dhagaha madaxa meelahaas ayuu ka sheeganayaa dhagaha waxa madax ka imaanaya dhaga la xanuunayo dhuunta la xanuunayso xabadka xanuunayo wadnaha laga haayaa baggaa laga haayaa caloosha laga haayaa waxyaalahaas ayaad arkaysaa marka waxa waa kulli markaan u fiiriyey oon fiirsaday oon daraasa aan ku sameeyey waxaan arkay inay yihiin dad badanaa dhinaca kor xanuunkooda uu kuna gaaro meeshaas ayuu aadaya kansara wadnaha ka galaayo misbeerka kansar ka galaayo wadnaha maahane sambabahan dhehe sambabaha waxa ka galaayo kansar dhuuntaas kansar ka galaayo waxaad yani wuxuu ku dhammaanayaa yani jirooyin oo aad iyo aad oo khatar u ah ayay noloshiis ku dhammaanaysaa marka waxay dadkii u khasabtay inaan maaragtay laanna qofkan oo xaasidka waa insaan kadaab waa been badan yahay inaad u tagto ma dhihi kartid niyo kaale aan interview kaa qaaday waxaan kaa raadinayaa ilxasadan kaa raadinaya waa adag tahay inaad maaragtay aad hesho information inuu ku siiyo marka waxay dadkii ugu khasabtay inaan si indirect ah u weydiiyo oo sidii information aaga helo andhow niyo intay sheeganaysaa waxaas xaaladaada ka war waxaan weydiinaya marka calaamooyinka oo xasadka qofka xaasidka laga helo qofka xaasidkan waxaa ogaatiin oo dadka xasdaaya asaga naftiis il xasad ayaa ka buuxdo oo ma aragtay xaasidnimo ayaa ka buuxdo marka asaga naftiis dhaawac ayay gaarsiinaysaa waxaana dhaawaca gaarsiinaya waxa waaye waa qariinka asaga jirkiisa ku jira ayaa dhaawacaas gaarsiinaya maadaama asaga qof oo xaasid uu yahay waana sheegnay qofka xaasidka ah qariinka aad iyo aad ayuu u jecel yahay si fiican yani ugu shaqaynayaa si fiican ayuu يعني shaqada loo diray si fiican ayuu qabanaya marka waxa waaye qariinka ayadoo saas ay tahay qofkan shaqada loo diro haayo ayuu xanuun u keenaya yani waxa waaye qof shaqaale lagu shaqaysto oo markii laga dangaarin la haraantii oo la tuuray ayuu noqonaya marka waxa uu keenaya jirooyin waana sheegnay inuu qariinka maaragtay xanuunkeena yani quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala وآيات بدن أياكو شيء إلهي سبحانه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه وسعتنا أيوب عليه السلام مركي أو جردي أو شيء إني وحن شيطانك أوجيسي شيطانك أوجيسي مركي شيطانك وحواي الشيطان بعد ما قشد القرين وحواي وسواس كلية معها ولا ليا أريد أن نسيب عن لو فهم الروا وسواس كلية معها حنون أيو كينايا حنون أيو كو جيسنايا حتى وحي أو كاهلو وحيالا أسقو أورادنا وامح وحيالا أورادنا مر وإنه أولا الأمراض الروحانية وإنه جلكا وكالا تنلبات وإن أها تقف حاسبة
qof xaasidna soo xaasid oo ku noqonaya waan sheegnay tarbiyada ayaa loogu soo dheelaya dad badanaa jira laakiin dad badanaa jiro oo ma arag tarbiyada loogu soo dheelay oo na xaasid noqonin oo ayaga istoosiyey marka qofkaani waxa waaye asaa doortay inuu jidkaan qaato asaa doortay inuu jidkaan qaato ilaahay subxaana watacaala yowma alqiyaama uu la xisaabtamaayo lanna qofkaan qof maskaxda maqan ma aha wuu la socdaa wuxuu samaynayo wuu la socdaa xanuunka iyo dhaawaca dadka uu gaarsiinayo dhaawac waxaan ka wadaa oo maarag nafsiyan ayuu u geysanaya xataa jasadiyan waa u geysanaya dad uu garaacayo insha allah duruusta waan soo qaadan doonaa ninka markuu xaasid yahay iyo naagta markay xaasid tahay maxaa farqi u dhexeeya maxaa lagu kala garanayo hooyo markay xaasid tahay aabo markuu xaasid yahay see lagu kala garanayo insha allah duruustaan oo dhan way soo socotaa dad badanaa la yaabaya hooyo xaasid weligaa ma aragta adig hooyo oo ilmaheeda xaasid ku ah weli ma aragta waa wax lala yaabo yani waa yani adiga naftaada waxaad leedahay waxaan yani qofkan human being ma aha qofka anaga ala dhaqmayno hooyadeena aan ujeedno inay bani aadam ahayn aan ujeedna sida ay noola dhaqmayso si bani aadamnimo ku jirta ma aha aabaheena sidaas oo kale yani ninkaygana sidaas oo kale ku leedahay bani aadam ma aha ninkan waa ku mana xaaskayga qoftaan bani aadam ma aha laana calaamooyinkan ayuu arkaya marka waxa waaye acraad alxasad waan naqaanaa acraad alxasad waxa waaye alxaraara fi ljasad yani qofka jirkiis kuleel oo noqonayo kuleel lagama waanaya jirkiis daa'iman kuleel waaye waxaa lagu arkaya waswaaska iyo shakiya lagu arkaya waswaas iyo shaki kama dhamaado waxaa lagu arkaya albalqam wax balqam le ka socda subaxdii iyo maalinta wax le tufaaya xaaqalo tufaaya fiiraha wax ka fadhiyo neefta dhib ku ah inuu neefsado neef oo fiican fresh ma helaayo waxaa lagu arkaya amraad muzmina waxaa la yidhahdaa yani jiro aan weligeed baxaynin oo daawona u qaadanaya sida sokor kolestarool dhiigkar waxyaalahaas ayaa laga helaa waxaa kasra laga helaya jirooyin oo xunxun oo weligeed aan ka bixin oo mar walba oo daawo u qaadanaya ayaa laga helaya waxaa kaloo lagu arkayaa garbaa culeysaa ka saaran dhabarka hoos waa xanuunaya calaamooyinka oo qofka xaasidka laga helo oo isha xasadka ku dhacday asagana waa laga helaya asagoo xaasid ah ilaahay subxaana watacaala asaga naftiisa wuxuu ku ibtileenayaa qofka oo xasday jirada ku dhacday ayaa asagana ku dhacaysa subxaana allah marka waxa waaye waa qof aan qalbi lahayn qalbi ilaahay ma siinin waxa waaye naxariis ma leh waxa ma leh dareen ma qabo waxaad arkaysaa wuu dhaawac xun oo dadka u geysanayaa wuu qoslayaa hadduu qosalka afka uu kaa tusinin qalbiga ayuu ku qoslayaa لأنه وحيالها أو مارت أو كرة حيست أو استمتاع أو كسمية وقفك مرك قفك كلا أو نب أو جارسية وحيالها أو نولي هو تاس إنه قفك مارتي نرشي أو كحماية أو كدي وقف مارت وسادة قف أمره جيسن قف أن فرح سنين ساس أيو نرشي قف أو كدي جاي مرك قف اللي بمارتي أول نولي هاي نرول في عنكم نورانا حتى إن على قارها مارتي ما دام أو حاسدها أو أصلا الجروب كل الدنيا هاي إشي كامل ديرو wax waliba aa gacanta ku qabato horumarka ma gaaraysid marka waxa waaye dad badana waxay sameeyaan waxooda uma sheegtaan asagoo la nool guriga la nool ayay waxooda ay ka qarsadaan marka waxa waaye sida aan sheegnay walaalayaal ibliis aad iyo aad ayuu maaragtay waxaan ugu dadaalay dad badan ayuu soo saaray family waliba maaragtay ilaa man raxma rabbi qof laba qof ayaa laga helayaa waxa kaliya u joogaan waxa waaye familigan inay dhulka ay la galaan familiga inay dhulka lala galo waxa waaye waana adag tahay zaaid ayuu adag tahay in la soo saaro qofka ilaa ilaahay qofka aan basiiro aan siiyo qof caqli leh oo wax fahmay ayaa soo saari karo oona dareema inuu qofkan nala joogo inuu qof bani aadam ahayn oo ibliis yahay ayuu dareemaya marka insha Allah ilaahay subxaana wa tacaala maaragta dadka ha ka qabto marka ummadda waxaan rabnaa inaan wacyi gelino oo arrintan si fiican maaragta loo daraaseeyo oo qofna aan lagu degdegin aan la dhihin qofkan maaragta قرينك يا لوريج وإبليس صعد ويان لدهن إلا لقى دراسي أو إن عوالي بلغة فيري مركز أو ماركتين قال لقى قال مركز إن شاء الله درسي قابلنا أساس أيام كسو قبل إن شاء الله دروس أيا صوص عطا بين الله الكريم أو قابل أو ديتيل أنكسين دونا بين الله الكريم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.